السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت له muuqaalkeena maanta waxaan isla fiirin doonaa xaqiiqooyin aad cajiib u ah oo aadan ku ogeyn dalka toddobaad ee ugu badka weyn caalamka, Hindiya. Qiyaas ahaan tirada dadka ku nool waxay kor u dhaafayaan 1.2 bilyan oo qof. Hindiya waa mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan uguna xooga badan caalamka. Haddaba muuqaalkan waxaa idinkula wadaagi doonaa 10 xaqiiqo oo ay macquul tahay inaadan ku ogeyn dalka Hindiya. haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Shaambo waxaa lagu soo ikhtiraacay dalka Hindiya qarnigii 16aad. Taasi macnaheedu ma aha shaambada aynu maanta naqaano in lagu soo farsameeyay Hindiya. Ereyga shaambo asal ahaan waxaa laga soo dhiraandhiriyay luqadii hore ee Sanskrit, taasoo macnaheedu ay tahay massage ama daliig. Hindiya waa wadankii ugu horeeyay ee laga soo saaro diamond uguna dhoofinta badan caalamka. Dalka Hindiya waxa ay ahayd wadanka ugu wax soo saarka badan ee diamond laga qodo adduunka, ilaa diamondka laga helay dalka Brazil qarnigii 18aad. Hadda waxaa jira 3 nooc oo diamond ah oo laga qodo Hindiya. Midka ugu caansan ayaa ah Kohinoor diamond, kaasoo la helay qarnigii 13aad. kulandiimeedkii ugu weynaa ee Hindiya waxaa laga arki karay oo kaliya Space-ka. Kumbh Mela waa isku soo bax diimeed oo ay aaminsan yihiin dadka haysta diinta Hinduuga, taasoo dadka geysa agagaarka webiga Ganges 12 sano mar. Munaasabadaha ugu waaweyn oo ay gutaan ayaa ah qubays dhaqameed iyo in ay meesha ka qaadaan wax ay ku sheegeen heese diimeed iyo sidoo kale quudinta dadka saboolka ah. Markii ugu dambeysay oo ay qabtaan waxay ahayd sanadkii 2011. Qiyaas ahaan tirada dadka soo xaadirtay waxaa lagu sheegay in ay ku dhow yihiin 75 milyan oo qof, taasoo ka dhigaysa isku soo bax diineed kan ugu weyn caalamka. Xaqiiq kale oo ku saabsan Hindiya ayaa ah in Taj Mahal dhab ahaantii yahay qabri. Sanadkii 1632 ayaa boqor Shah Jahan oo ka talin jiray dalka Hindiya bilaabay dhisida Taj Mahal si uu ugu xasuusto xaaskiisa Mumtaz Mahal oo ka geeriyootay. Sidoo kale Taj Mahal waxa uu ka mid yahay 7 mucjiso ee adduunka, waana astaan cajiib ah oo u taagan jacayl iyo dardalaalka dhismaheeda. Ilaa 28 nooc oo kala duwan oo dhagxaan qaali ah ayaa loo adeegsaday qurxinta meeshaan, waxayna ahaayeen ilo laga kala keenay Tibet, Shiinaha, Sri Lanka iyo qaybo ka mid ah Hindiya. Hindiya waxaa laga helaa mid ka mid ah hal-abuurada ugu cajiibsan ee bani'aadamka, sida buundada Bandara-Worli oo ah buundadii ugu horeysay ee dul marta badda, iskuna xirta ilaa 8 magaalo. Xaqiiqda ku saabsan buundadan ayaa waxay tahay mid kasta oo ka mid ah fiilooyinka ayaa awood u leh inuu haysto 900 oo tan oo miisaan ah. Dhammaan miisaanka asaaskeeda ayaa u dhigma culeys ahaan 50,000 oo ah maroodiga Afrika ku nool. Muslimiinta ku nool dalka Hindiya qiyaas ahaan waxaa lagu sheegaa in ay ku dhow yihiin ilaa 250 milyan oo qof, taasoo Hindiya ka dhigaysa dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka. Xaqiiqda ayaa waxay tahay in ka badan 300,000 oo masjid in ay ku yaalaan dalka Hindiya. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa waxaa ka mid ah Jama Masjid oo ku taala New Delhi, iyo Makkah Masjid oo ku taala Hyderabad, iyo Tajul Masjid oo ku taala Bhopal. Hindiya waxaa ku nool dadka ugu badan caalamka ee cuna khudradda ama loo yaqaan vegan. Haddii aad ka mid tahay dadka cuna khudradda oo kaliya, waxaad ka casuuman tahay dalka Hindiya. Qiyaas ahaan 40% dadka ku nool Hindiya waa kuwa cuna khudradda oo kaliya. Taasina waxaa ugu wacan diinta ay aaminsan yihiin oo ah Hinduism-ka. Dalka Hindiya waa dalka kaliya ee xuquuq gaar ah ay ku leeyihiin lo'da. Qof waliba oo aaminsan diinta Hinduuga waxa uu aaminsan yahay markii uu dhasho in uu leeyahay 2 hooyo. Hooyo waa midda isaga dhashay ee bani'aadamka ah. Hooyada kale waxa ay ku sheegaan lo'da maadaama ay caanaheeda cabaan.
Wadooyinka Hindiya dhirirkooda marka la isku daro waxa ay gaaraysaa 1.9 milyan oo mayl, taasoo ka dhigaysa shabakadda labaad ee ugu weyn xagga wadooyinka ee adduunka, marka laga reebo Mareykanka oo koowaad ku jira. Hindiya waa dalka labaad ee ugu weyn ee looga hadlo afka Ingiriisiga marka laga soo tago dalka Mareykanka, taasina waxa ugu wacan kala duwanaanshiyaha luqadaha ay ku hadlaan oo qiyaas ahaan gaaraysa 122 af.